kulanti wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana ka mid ah dowladda Soomaaliya oo madaxda Jubbaland kala noqotay baasaboorka diblomaasiga farmaajo oo talo muhiim ah loo soo jeediyay kadib weeraradii Al-Shabaab ee Shabeellada Hoose Al-Shabaab oo iskaga baxay haatan degmada Jamaame iyo ciidamada dowladda oo gaaray duleedka Jamaame aadan barra ducaalo lagu weydiiyay inuu cunto dhacday siiyay caruur Angola رئيسل وزراء قيرة أو بغضي أسكر في كل وعطي ورقي على الشباب يشلكوا قاعدين ديجان كعسري شبيلة عصي هدي عندكوا عصر تعلم عندكوا صبيت فلان دعوة سبسكران في جنرال كان سياد ويشوا وعكستون جنرال كان سوق لنا تاريخ ضو حي تحي لبعتن كبيش اللبعض فبراير سنة كلامكم لبعتن انت المغشين يقضوا بكره كسروا هذا صاحب بيال dowladda federaalka Soomaaliya ayaa madaxda Jubbaland kala noqotay baasaboorka diblomaasiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baasaboorka diblomaasiga kala noqotay dhammaan xildhibaanada wasiirada iyo madaxda kale ee Jubbaland sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa baasaboorka kala noqotay wasiiradii xildhibaanadii hore ee Jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiin haystay baasaboorka isla markaana taageersan Axmed Madoobe warkaas ayaa inta ku daray in immigration-ka Soomaaliya oo kansal gareeyay baasaboorka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada halka wasiiro iyo xildhibaano Muqdisho midna laga qaaday xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka tirsan baarlamaankii hore ee Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in laga noqday baasaboorka diblomaasiga ayna kala wareegeen immigration-ka Soomaaliya isaga iyo wasiiro iyo xildhibaano kale oo qaarkood hadda shaqeeyaan anoo ka mid ah xildhibaanada Jubbaland waxaan ku sheegayaa walow aan hadda jeclayn inaan hebel iyo hebel dhaho in xildhibaano iyo wasiiro laga reebtay ka tirsan Jubbaland garoonka aadan hadda looga reebay baasaboorkii diblomaasiga ahaa oo ay ku safriyeen oo qaarkoodna ay viisayaal u lahaayeen qaarna aan mataqaan ay rabeen inay ku xad ku baxaan markaan weydiinay arrintaasna waxay yiraahdeen dowladda amartay in la joojiyo ama aan la siinba xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan Jubbaland wax baasaboor ah markay soo galaan laga reebo haday baxayaan laga reebo dawladda nagu amartay weedeen nimanka dhalinyarada oo aeroportka jooga arintaas oo haday meel ka dhac ku ah dawlad goboleedka Jubbaland oo kaligeed looga reebay baasaboorradii dawlad goboleedyada kalena aan aysan saameyn ku lahayn arintaas runtii aad iyo aad baan uga xunahay haddaan ka tirsanahay xildhibaanada Jubbaland waxaan tirada ku hayaa in laga reebay ilaa 6 laakiin aan hadda ku dhahayn hebel wasiiro iyo xildhibaano isugu jiraan wasiirada 2 wasiir iyo ilaa 4 xildhibaan waliba inay ka badan yihiin waan rajaynayaa tiradaas wasiirka qorsheynta dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in aysan aqoonsaneen doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose taas oo la sheegay in mar kale madaxweyne lagu doortay Axmed Madoobe khilaafka dowladda iyo maamulka Jubbaland ayaa saameeyay guud ahaan deegaanada maamulkaasi iyo bulshada qaybaheeda kala duwan macada halku ku dambeyn doona khilaafka Jubbaland iyo dowladda federaalka waxaa xusid mudan in maalmihii dambe uu sii xoogeysanayay khilaafka u dhaxeeya dowladda iyo Jubbaland kadib markii dowladda ay xoog kula wareegtay gabiyahaanba deegaanada iyo degmooyinka ugu caansan gobolka Gadeey koonfurta Soomaaliya ciidamo laga qaaday Muqdisho ayaa gabiyahaanba dowladdu ku qabsatay gobolkaasi sidoo kale xiisad u dhaxaysa Jubbaland iyo dowladda ayaa waxay ka taagan tahay degmooyin dhowr ah oo ku yaal gobolka Gado ayna ka mid tahay degmada Balad Xaawo ay isku horfadhiyaan ciidamo Muqdisho looga qaaday diyaarado halkaas la geeyay iyo kuwa Jubbaland oo hogaaminaya wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsadka ah dowladda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa haatan baneeyay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose Al-Shabaab ayaa haatan baneeyay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose waxaana duleedka deegaankan gaaray ciidamada xoogga dalka ciidanka xoogga dalka oo ka ambaxay deegaanada Araare ee gobolka Jubbada Hoose ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgal kala duwan ka sameeyeen deegaanada ka tirsan gobolkaasi saraakiisha howlgalka hogaaminaysa waxay sheegeen in deegaanada dhowr ah ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ka mid yihiin deegaanada kooban iyo Bangeeni ee gobolka Jubbada Hoose waxaana ay sheegeen in ay ku dhawaadeen
degmada Jamaame oo gacanta ku hayaan al-shabaab. Taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka gaashaan la sare Maxamed Badal Xasan ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay in saacadaha soo socda ay gaari doonaan gudahan u gali doonaan Jamaame halkaas oo iskaga baxeen maleeshiyada al-shabaab sida uu hadalka u dhigay. Taliyaha ayaa tilmaamay in howlgalkan ay sameynayaan ciidamada guutada 11aad qaybta 43aad iyo ururka 5aad guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya isla markaasna intay wadeen ay ku soo saareen ilaa dhowr miino oo al-shabaab dhulka ku aaseen. al-shabaab wali dhankooda kama hadal warkan ka soo yeeray iska ciidanka xoogga dalka kaas oo ku aadan in iskaga baxeen degmada Jamaame ee Jubbada Hoose. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo soo jeediyay talo muhiim ah kadib weeraradii shalay al-shabaab ay ku qaadeen dhowr meel oo ay ciidamada xoogga ka deganayeen Shabeellada Hoose. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya aadna u dhaliila xukuumadda Farmaajo ayaa talo u soo jeediyay madaxweyne Farmaajo kadib weeraradii ay al-shabaab shalay ka geysteen goobo dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Fiqi oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa wuxuu madaxweyne Farmaajo uga dalbaday in uu booqdo goobihii lagu weeraray ciidamada dawladda maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya. Sidoo kale xildhibaanka ayaa waxaan suurtagal ahayn ku tilmaamay in ciidamadii joogay madaxweynaha hortiis ay maanta al-shabaab laayaan gurmad la'aan darteed. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in ciidamadii la tababaray intuu talada hayay uu ku haysto madaxtooyada. Suurtagal ma aha in ciidamada joogay markii talada uu qabtay in gurmad la'aan cadowga loogu hoogo kuwa cusub ee uu tababarayna uu madaxtooyada ku haysto ayuu qoraalkiisa ku yiri Axmed Macalin Fiqi. markaana Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa lagu eedeeyay inuu cunto dhacday siiyay caruur agoon ahayd. Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa lagu eedeeyay inuu cunto dhacday siiyay caruur ku jirtay xira agoon ah oo ku taala magaalada Gaarisa ismaamulka Soomaalida. ciidamada booliiska qaybta dambi baarista ayaa u yeeray Aadan Barre kadib markii loo gudbiyay eedeyn ku aadan inuu cunto dhacday siiyay ilmo agoon ah sida lagu daabacay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay Kenya. Aadan Barre Ducaale ayaa eedeynta loo soo jeediyay inuu cunto dhacday siiyay ilmo agoon ah ku tilmaamay inay tahay mid been abuur ah oo la doonayo in lagu dilo sumcadiisa. Aadan Barre ayaa sheegay inuu telefoon kula hadlay taliyaha booliiska Wajeer una sheegay inaysan waxba ka jirin eedeynta loo soo jeediyay. loo soo jeediyay Aadan Barre Ducaale ayaa ku soo aadaysa xilli uu 15 sano kadib markii ugu horeeyay booqday xarun lagu xanaaneeyo caruurta oo ku taala magaalada Gaarisa isagoo u qaybiyay deeq raashina. markaana Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa isbitaalka xoogga ku booqday askar ka tirsan ciidamada xoogga oo ku dhaawacmay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Ceelsaniini ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay shabaab shalay soo weerareen. ra'iisul wasaaraha ayaa maamulka isbitaalka xoogga ka wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka ku soo dhaawacmay weerarkii Ceelsaniini isagoo u rajiyay in si dhaqso ah u bogsadaan isagoo askartii dhimatayna sheegay inay haayeen kuwa shahiiday dalkoodana difaacayay. ra'iisul wasaaraha ayaa guud ahaan saraakiisha ciidamada qalabka sida ee furimaha dagaalka jooga uga mahad celiyay dadaalada ay ugu jiraan soo afjaridda la dagaalanka al-shabaab. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan. markaana warkii dibadda dawladda Shiinaha ayaa dalkeeda ka masaafurisay wariyaal shisheeye. dawladda Shiinaha ayaa amar ku bixisay in dalkeeda ay iskaga tagaan wariyaal shisheeye oo ka soo waramayay caabuqa dilaaga ah ka dilaacay dalkaasi. wariyaashan oo u shaqeynayay majalada Wall Street Journal ayaa lagu eedeeyay inay tabinayeen warar been abuur ah oo xaqiiqda ka fog. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Shiinaha ayaa sheegay in shacabka Shiinaha aysan soo dhaweyn daabacaada warar ku saleysan faquuq. fayraska dilaaga ay ka dilaacay Shiinaha ayaa ilaa haatan waxa uu galaaftay in ka badan 2,000 oo ruux isagoona sidoo kale soo ritay dad kor u dhaafaya 75,000 oo ruux. ugu dambeyntii hogaamiyaha Sri Lanka ayaa ku hor yimid eedeymo culus oo kaga yimid qaramada midoobay. ra'iisul wasaaraha dalka Sri Lanka ayaa si adag ugu hor yimid eedeymo culus oo kaga yimid hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka xuquuqda aadanaha. daawadayaal waa naga intaa wixii warad nagala socoteen. haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan.